siyaasadda madaxweyne Putin waxa ku wareersan ilaa iyo hadda reer galbeedka. Madaxweyne Trumpna waxa uu ka walaacsan yahay tallaabooyin la sheegay in markan uu qorsheynayo madaxweyne Putin oo la xiriirta arrimihii wada hadalka Ukraine. sida qaar ka mid ah qubarada arrimaha tiknoolajiyada iyo waliba farsamooyinka militariga ay ku dhawaaqeen. Putin ayaa toddobaadkan laga yaabaa in uu tijaabiyo gantaal cusub oo cruise taasi oo lagu ogaaday sawir dayax gacmeed dhinaca loo adeegsado militariga lagu qaaday oo ay falanqeeyeen qubaro sare. arrintan haddii ay dhacdo waxay ka dhigan tahay Putin in uu muujinayo awood lixaad leh isla markaana ay ka dhigan tahay dagaalkii Ukraine inuu ku guuleystay. dadka qaar ayaa u fasiri doona haddii gantaalkaasi la soo bandhigo macnaheedu inuu yahay reer galbeedka inay isdhiibeen. haddaba sidee arrimahan u qorsheynayaan dalka Ruushka? sideese lagu ogaaday ma dhaba dayax gacmeedkaasi in loo adeegsaday hannaan basaasnimo ah iyadoo la korgeeyo goobta iminka la leeyahay dhaqdhaqaaqa tijaabadu way ka socotaa. aqalka Kremlinka siyaasad ahaan maxay uga dan leeyihiin arrintan? Ukraine ma waxa ay noqonaysaa mid quus ka dhigaysa wada hadalkii ay dadaalada ka fili lahayd? maxaase ka jira Trump in uu weli ka labacaynayo inuu jawaab rasmi ah bixiyo ka hor inta aan gantaalkaasi la tijaabin? warbixin arrimahaasi la xiriirta oo si weyn qubarada arrimaha dagaalka iyo hubka ay u falanqeynayaan ayaan barnaamijkan idinkula wadaagi doonaa haddii uu Rabbi saamaxo. Ra'iisul Wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu waxa uu qorsheynayaa inuu xilka ka qaado taliyaha ugu sarreeya ciidamada militariga ee nidaamkaasi Eyal Zamir kadib markii labada dhinac ay hadda gorodda isla galeen khilaaf xooggan uu ka bilowday hannaanka loo maareynayo dagaal cusub oo ay suuragal tahay mar kale in lagu qaado marinka Gaza taasi oo xiisadda kor u sii qaadaysa. Eyal Zamir ayaa u sheegay wargeyska The Haaretz ee Israel in xaaladdu hadda ay u muuqatay inay bannaanka u soo baxday. waxaana uu sheegay inuusan marnaba diyaar u ahayn weerar lagu qaado magaaladaasi. wuxuu yidhi laba ujeeddo ayaa ka dhalan karaysa weerarkaasi. waa mare in dabin loo dhiga ciidamada militariga oo halkaasi tiro badan oo askara lagu dhameeyo iyo weliba dadka la haystayaasha oo qaarkood rajo laga qabo inay nool yihiin in ay noloshooda galaafato. tani waxa ay keentay buu leeyahay Netanyahu iyo Zamir inay hadda ismari laayihiin. waxaana xaaladdu ay u muuqataa Israel dhexdeeda in mar kale ay iska lulanayso. inta aan barnaamijka wada joognaa khiyaarta ay nala socotay waxaan sidoo kale qaadaa dhigi doonaa dowladda Sacuudi Arabiya oo soo saartay war la yaab leh kadib markii ay tiri go'aan Israel ka yimid ayaan ka hortagi doonaa iyadoo toddobaadkan ay wajahday dowladda Riyadh mid ka mid ah fadeexooyinkii ugu waaweynaa ee arrimaha dagaalka bariga dhexe ka taagan ku saabsan markii la ogaaday in hay'adda Baxri la yiraahdo ay ka shaqeysa arrimaha badda iyo gaadiidku ay ka shaqeynayeen in ay agab iyo waxyaabo kale u daabulaan nidaamka Israel taas oo dowlado fara badan iyo shirkado yoro dunida islaamka ka soo jeeda ay si weyn uga careysiisay. haddaba dowladda Sacuudi Arabiya ma waxay doonaysaa inay tirtirto raadkii fadeexada ahaa ee toddobaadkan ay la kulantay? soo dhawaada khiyaarta nala socotay waa 14 bisha Agast sanadka 2025. aan ku horeeyo wadanka Ruushka madaxweyne Vladimir Putin ayaa lagu soo waramayaa inuu qaaday ama uu qorsheynayo tallaabooyin si weyn uga careysiinaysa dalka Mareykanka kadib markii la sheegay inuu toddobaadkan qorsheynayo ka hor kulanka uu la kulmayo ama uu la fariisanayo madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump in uu tijaabiyo gantaal cruise sida ay sheegeen qubaro arrimaha militariga iyo gaashaandhigga ka faalloota isla markaana falanqeysa hubka iyo weliba gantaalaha dowladuhu ay tijaabiyaan. cilmi baarayaal Amerikaana iyo kuwa amni oo reer galbeed ayaa sheegay in Ruushka uu muuqdo inuu u diyaar garoobayo tijaabada gantaal cusub oo nooca cruise ah oo ku shaqeeya baa la yidhi tamarta nuclear-ka xilli madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin uu isu diyaarinayo inuu la kulmo madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump si ay uga wada hadlaan arrinta cakiran ee Ukraine. kulankaasi oo dhici lahaa maalinta Jimcaha ee soo socota sida ay warisay wakaaladda wararka ee Reuters. warbixinta ayaa waxaa laga soo xigtay qubaro iyo cilmi baarayaal sare
oo si weyn ula socotay dhaqdhaqaaqyada ka soconaya gudaha Ruushka ee ku saabsan arrimaha gantaalaha ay tijaabiyaan iyo farsamooyinka dhinaca militariga. Jeffrey Lewis oo ka tirsan jaamacad la yiraahdo MIS oo ku taala California iyo waliba Decker Efeleth oo ka tirsan hay'adda cilmi baarista iyo falanqaynta ee CNN la yiraahdo ee fadhigeedu yahay Virginia ayaa labadan qabiir waxa ay sheegeen in ay muuqato tilaabooyin Ruushku uu ku farsameynayo amaba uu doonayo inuu ku tijaabiyo gantaalkaasi cruise-ka. labadan qabiir oo falanqeeyay sawirro si madax bannaan ay u qaaday shirkadda la yiraahdo Planet Labs oo ah shirkad gaar loo leeyahay oo ka shaqeysa sawir qaadista dayax-gacmeedyada kuwaasi oo laga qaaday toddobaadkii la soo dhaafay ilaa iyo talaadadii shalay ahayd goobo kala duwan oo dalka Ruushka ka tirsan. Qubaradu waxay isku waafaqeen in sawirradu ay muujinayaan dhaqdhaqaaq ballaaran oo ka socda goobta tijaabooyinka ee Bankova oo ku taala jasiirad la yiraahdo Novaya Zemlya oo gudaha dalka Ruushka ah. dhaqdhaqaaqyadaasi ayaa waxaa ka mid ahaa baa la yidhi kordhinta shaqaalaha, qalabka, maraakiibta iyo diyaaradaha la xiriira tijaabooyinkii hore ee gantaalkii loo yaqaanay 9M730 kaasi oo dowladda Ruushku ay tijaabisay isla markaana si weyn ay uga galgasheen wadamada reer galbeedku. Jeffrey Lewis aqoonyahanka lagu magacaabo waxa uu leeyahay waxaan si cad u aragnaa dhaqdhaqaaqyo ka socda goobta tijaabada, qalab tiro badan oo la soo daabulayo si loogu taageero howlaha iyo dhaqdhaqaaqa laga dareemayo goobta laga rido gantaalka ayuu yiri, taasi oo muujinaysa in madaxweyne Putin hadda uu qaatay go'aan dhameystiran. sidoo kale ila amni oo reer galbeeda oo aan la magacaabin ayaa xaqiijiyay in Ruushka uu isku diyaarinayo inuu tijaabiyo gantaal la yiraahdo Brevesinki oo kamid ah gantaalada nuclear-ka lagu xiro. Lewis wuxuu uu sheegay in tijaabadu ay dhici karto toddobaadkan, taas oo kor u qaadaysa suurtagalnimada in arrintan saameyn ay ku yeelato shir madaxeedka Alaska ka dhacaya ee u dhaxayn doona Trump iyo Putin sida labada dhinacba ay qorsheynayaan. markii laga codsaday in uu ka faalloodo aqalka cad arrinta suurtagalnimada tijaabadan, sidoo kale wasaaradda difaaca Mareykanka ee Pentagonka, CIA-da iyo wasaaradda difaaca Ruushka midkoodna wax jawaab ah kama bixin arrintan hadda banaanka u soo baxday. Putin waxa uu gantaalkan ku sifeeyay inuu yahay mid aan laga hortagi karin, isagoo leh masaafo aan xadidnayn iyo waliba waddo duulimaad oo aan la saadaalin karin, taasi oo muujinaysa in horeba dowladda Ruushku ay u ballan qaatay in gantaalkaasi la ridi doono. haddaba markaan ka imaadno wadamada awoodda iyo hubka isku sheeganaya, dowladda boqortooyada Sacuudi Arabiya ayaa si weyn u dhaliishay bayaan ka soo baxay wasaaradda amuuraha dibadda ee waddankaasi. Ra'iisul wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu oo ku hadaaqaya Israel weyn ka hirgasha gobolka Bariga Dhexe. wasiirka amuuraha dibadda ee dalka Sacuudiga ayaa qoraal uu soo saaray waxa uu ku yiri tilaabooyinka Israel waxay u muuqdaan kuwa aan la aqbali karin oo muujinaya in ay xaaladda ka taagan gobolka Bariga Dhexe uga sii darayso. waxaan soo jeedinaynaa ayuu yiri ogolaashaha xuquuqda shacabka walaalaha Falastiiniyiintu ay leeyihiin, taasi oo ah dowlad madax bannaan oo caalamku aqoonsan yahay oo dadkaasi ay ku naaloodaan. wasaaradda warka ay soo saartay waxay leedahay boqortooyadu waxay mar kale xaqiijinaysaa xaqa taariikhiga ah iyo kan sharciga ah oo ay leeyihiin walaalaha reer Falastiin si ay u dhistaan dowlad madax bannaan oo leh wadajir dhuleed iyo madax bannaani buuxda, taasi oo ka dhigaysa xeerarka iyo waliba go'aanada caalamiga ah ee adduunka mid lagu saleeyay. wasaaradda amuuraha dibadda ee Sacuudiga war-saxaafadeedku waxay sidoo kale ku boorisay beesha caalamku inay ka feejignaadaan kana digtoonaadaan beetirisi socoshada xadgudubyada joogtada ah ee Israel ay ku hayso shacabkaasi iyo dhulka ay sii ballaarsanayso. waxaan cambaaraynaynaa tallaabo kasta oo ka hor imaanaysa sharciga caalamiga ah ayaa lagu yiri warka ka yimid dowladda boqortooyada Sacuudiga.
Israa'iilna waxay u muuqataa markan inay kala lulanayso marka la eego xaaladda rasmiga ah ee hadda ka taagan go'aanada amniga iyo weerarka ku dhisan oo toddobaadkii hore ee lasoo dhaafay golaha amniga ee wasiirada Israa'iiliyiintu ay gaareen. taliyaha ciidamada Israa'iil Eyal Zamir ayaa u sheegay wargeyska The Haaretz ee Israa'iil ka soo baxa in ra'iisul wasaare Netanyahu uu qorsheynayo inuu xilka ka qaado marka la eego isqabsashada la xiriirta arrimaha ammaanka iyo waxa laga yeelayo dib u abaabulidda duulaan lagu qaado magaalada go'doonsan oo ku taala marinka. waxa uu yiri anigu waxaan aaminsanahay dagaaladaasi inay tahay kuwa aan suuragal ahayn xilligan marka laba dhinac laga fiiriyo oo la xiriira arrimaha siyaasadda iyo waliba kuwa difaaca ee gobolka bariga dhexe. waxa igu adkaatay buu leeyahay Zamir in aan aqbalo inaan ciidamada u gacan baneeyo Netanyahu iyo waliba Israel Katz oo wasiirka difaaca ee nidaamkaasi. waxaana uu ku dhawaaqay in tallaabooyinkan ay noqonayaan dabin loo dhigayo ciidamada militariga. aad ayaan ula ashqaraaray tallaabooyinka qariska toornimada ah ayuu ku yiri wargeyska marka uu la hadlayay. isagoo sii hadlaya waxa uu tilmaamay in marka la eego xaaladda hadda taagan aanay marnaba suuragal ahayn weerar la qaado taasoo ay ka dhalan karaan buu yiri in dagaalku uu sii jiitamo oo dhigbaxa uu aad u ballaarto iyo waliba la haystayaasha nool ee rajada laga qabo inay dunida sii joogaan in nolosha la dhaafiyo. dhinaca kale baaqyada caalamiga ah iyo cambaaraynta aan la kulmayno ayaa inoogu filan buu yiri fadeexooyin waaweyn. arrinta Israa'iil ayaa u muuqanaysa hadda inay aad isugu khilaafsan tahay gudaha iyadoo Yair Lapid oo hogaamiyaha xisbiga mucaaradka ugu weyn ee Israa'iil uu ku dhawaaqay tallaabooyinkaasi inaan la qaadi karin. qoysaska ururka ay ku midoobeen la haystayaasha ama qoysas ay ku midoobeen urur dadkooda la haysto ayaa waxa ay yiraahdeen tani waxa ay soo dadajinaysaa in dadkeenii laga quusto. dhinacyadan ayaa hore u sheegay waa kuwa doonaya dagaalku inuu sii socdo ee maxaabiista in loo garto askar dagaal lagu qafaashay oo kale magaaladaasi guud ahaanna gacanta lagu dhigo. hase haatee waxay u muuqataa haatan Israa'iil inay aad u sii kala furfuranayso. dhinaca kale ra'iisul wasaare Netanyahu ayaa aad u wajahaya cadaadisyo kala duwan oo ka imanaya maxkamada kala duwan oo caalami ah. maxkamad gudaha Israa'iil ku taala ayaa si weyn u haysata iyadoo ku eedeynaysa arrimo la xiriira musuqmaasuq halka maxkamadda dambiyada adduunkana ay baadi goob ku hayaan. halkaarta nala socota ay tabintana intaas ayaan ku gabagabeynayaa. si aad macluumaad iyo warar kale oo dheeraad aad u heshaan ku soo biira YouTube-ka oo subscribe saara. nabadgelyo.